wixii xalay ka dhacay aqalka cad ee dalka Mareykanka waxay ahayd wax filawaa ah oo ku cusub curfiga diblomaasiyadda adduunka. dawlado fara badan ayaa haddaba isweydiinaya Yurub waxay u muuqataa inuu waaga u bariyay oo dawladaha Faransiiska iyo Jarmalku waxay leeyihiin innagu ma joogno meel aan uga harnay Ukraine oo waan badbaadinaynaa. Zelensky telefoonno kala duwan ayaa ku dhacaya. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu wareysi siiyay telefishinka Fox News waxa uu yiri xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba Ukraine waa mid ka fog buu yiri Trump iyo Zelensky. labadeena hadda murmaya siyaasadaha aan wadano waxa ka fog kan u dhaxeeya shacabka labada dal. sidaa daraadeed Mareykanka waa xaliif iyo saaxiib weyn oo aan leenahay meelna kuma kala tagi doono. waraysiga oo dhinacyo badan taabanayay ayaa xitaa su'aalaha la weydiinayay telefishinka Fox News wariyihii ka socda oo weydiinayay waxa qaarkood ay u muuqdeen mid isaga taabanaya shakhsiyadiisa. waxa la yiri Trump haddii uu ku nacay miscasilaysa laakiin waxa uu ku jawaabay hadalka ka weyn oo waxa uu yiri waxa inaga dhaxeeyaan Trump isaga halka wax shaqo ah uu ku leeyahay ama boos uga banaan uu sheegi karnaa ama aan u sheegi karnaa ma jiraan. dawladda Ruushka fursad ayay heshay ay kaga faa'iideysanayso isbedelada cusub ee dhacaya. Sergey Lavrov teleefankii ayuu la kala baxay cid walba ayuu wacaya waxaase uu leeyahay wiilkan yari ee Ukraine hogaamiya ma garan karo waxa Mareykanka uu fahmayo. isaga iyo sidoo kale Hakan Fidan ninka Turkiga wasiirka amuraha dibadda ka ah ayay teleefanka isku maqleen. diblomaasiyadda adduunka ayaa xayndaabkii jartay. haddaba Turkiga iyo Ruushka qorshaha ay wadaan ee cusub muxuu yahay? maxaase toddobaadyada soo socda wasiirka amuraha dibadda ee dalka Turkiga uu geyn doonaa fadhiga wasiirada ammaanka ee wadamada Yurub? war baan idinkaga hayaa oo idin sheegi doona caawa. waxaan sidoo kale eegi doonaa Mareykanka xogayaha gaashaandhigga Mareykanka oo isna war soo saaray ka dhana wadanka Mexico. waxa uu yiri innaga ayaa gudaheena tallaabo ka qaadi doona oo fulin doona haddii sidaan annaga aan rabno aad wax yeeli waysaan. qodobadaasi ayaan dul istaagayaa oo ku saabsan ama ku dul wareegi doona barnaamijkeena ee caawa arrimaha diblomaasiyadda, amniga, siyaasadda caalamka iyo waliba isbedelada waaweyn ee hadda ka soconaya adduunka. aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal ku soo biiray YouTube-keena oo subscribe dhaha. waa mahadsantihiin. Volodymyr Zelensky xalay waxa uu dhex dabaashay badweyn waxa ay u muuqataba muujadaha diblomaasiyadda adduunka xalay in uu ku dhaxaftay. waxa uu fahmi waayay meeqaamka dawladda Mareykanka caalamka ay ka joogtay iyo waliba dhaqaalaha wadankiisa lagu bixinayay. murankii dhacay warbaahinta caalamiga ah hortooda iyo kaamiradaha ugu afka dheer adduunka waxa ay dhalisay bal dib in loo eego Mareykanka iyo waliba go'aanada uu qaadan karo. goor dhaweyd telefishinka Fox News oo arrintaasi si weyn indhaha ugu hayay la taliyaha arrimaha amniga Mareykanka ayaa la hadlay. waxa uu yiri sida wiilkaas yara xalo uu hadlay waa Zelensky ma qaadan karna haddii aan nahay Mareykanka. qabkeena iyo quwadii aan lahayn ayuu ku dhacay ama u gafay. waxa uu sidoo kale meesha ka saaray qadarkii taageero aan siin jirnay muddada dheer isaga oo noqday buu yiri abaaldhaan aan waxba fahmi karin. dhinaca kale Zelensky ayaa xalayba la hadlay barnaamij gaar ah oo uu baahiyay telefishinka Fox News. su'aalo badan ayaa odaga beerka looga garaacay. waxa la weydiiyay ninkii Trump ahaa iyo adiga waad isku dhacdeen bal ka waran xiriirka Mareykanka aad la yeelan doontaan mustaqbalka. waxa uu yiri marka laga hadlayo Ukraine iyo Mareykanka waxa ay ka fog tahay marka laga hadlayo Zelensky iyo Trump. labada shacab waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireena taariikh fog iyo saaxiibtinimo. sidaa daraadeed ma filayo in arrintaasi ay meesha ka bixi karayso ayuu yiri oo xiriirka waa uu sii jiri karayaa. waxa sidoo kale la weydiiyay su'aal kale oo iyana ay u muuqatay warbaahinta Mareykanka qudheeda xataa in dagaalka diblomaasiyadda xalay dhacay ee qayb ka ahayd. waxa la weydiiyay odagii Zelensky ahaa isagoo fanaanadiisii madoobeyd wata aad u sheekaynaya indhaha taagaya xaalad walwalana ku jira. ninkii Trump ahaa waa ku nacay waxa uu kugu tilmaamay dictator waad la murantay adduunkii oo daawanaya siyaasadda Mareykanka waad qiimeyn weysay
taageeradii aan ku siin jirnay waad fahmi weysay ma kula tahay inaad la joogo waqtigaad iscasili lahayd Zelensky waxa uu yiri haddii aan iscasilayo iyo haddii aan joogayaba mid Mareykanka u taala maaha arrintan waxa iskala buu yiri shacabka dalka Ukraine oo iyagu ay muhiim tahay in ay tallaabada noocaas ay ka timaado anigu waxaan ahay muwaadin Ukrainiya waxaan diyaar u ahay wax kasta oo dalkayga lagu badbaadin karo in shacabkayga ay ka timaado sida daraadeed Mareykanka xiriir baa naga dhaxeeya waan qirayaa laakiin kursiga uga tagi maayo Trump waa hadal kale oo madfac ah oo Trump lagu dhuftay xalay wiilkan yar ee dhalasho ahaan la yiraahdo waa Israa'iili Ukraine hogaamiya hadda isaga iyo Mareykanku waa ay ka dhex taagan tahay waayahay dowladda Turkiga waxaad moodaa arrimahaas inay aad uga faa'iideysanayso wasiirka amuraha dibadda dalka Turkiga Hakan Fidan oo la aaminsan yahay inuu yahay ninka dhaxli doona talada dalka Turkiga ayaa teleefanka waxa uu kula hadlay Sergey Lavrov wasiirka amuraha dibadda ee waqtiga dheer jooga dalka Ruushka labada dhinac waxay ka wada hadleen xaaladda taagan wada hadallada la gali karayo iyo waliba qorshaha bariga dhexe Lavrov waxa uu sheegay iyadoo dunida wixii aragtay ka dhacayeen xalina in dhinaca Ukraine ay dagaal la qaadayeen oo ciidamada Ruushka ay mar kale jiteeyeen laakiin waxa uu yiri jabka iyagu gaaray markii aan fiiriyo dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska wali waa ay sii qaylinayaan waxay leeyihiin haddii uu ka tagay Mareykanka Ukraine annaga shacabkaasi Europeanka ah banaanka ugama tagi karno oo waxaynu doonaynaa inaan badbaadino kaama tagayna ay leeyihiin saaxiib Zelensky joog meeshaada hawalaacin Yurub ayaa kula joogta oo kula dhimanaysa Yurub xala waaga ayaa ku bariyay oo waxay u muuqataba in wixii dhacayay ay aad ula yaabaraayeen waayahay markii aan fiiriyo isla wararkaasi Ukraine saacadii la soo dhaafay warbaahinta adduunka ayaa arrintaasi faaqidayay waxana la isweydiiyay curfiga diblomaasiyadda adduunka waxa ku dhacay maxay tahay awoodda uu adeegsanayo Zelensky caawa ama xalay aan iraahdee dowladda adduunka ugu quwadda badnayd uu dul istaagay ama isagoo waliba aad ula murmaya Trump aadna u xanaaqay xitaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa yiri warheede miyaanan intaasoo lacaga 350 bilyan ayna kugu bixin waa maxay abaaldhaanimada xitaa maadan oran waad mahadsantihiin arrinta marka la fiiriyo dirbaba laba sheeko oo waaweyn ayaa soo baxday Trump waxa uu ninkan uga soo horjeedaa dhalashadiisa oo la yiri waa Israa'iili laakiin shacabka meesha ku baaba'aya waa dad asalkooda cadaan yahay Trumpna cadaanka iyo asiga lama kala baro marka waxa uu leeyahay dadkaas inay baaba'aan ma aqbali karayna ninkanna in uu qoorta taagayo oo aad u dagaalamayo oo hadaladiisa ay kulkulul yihiin waxa garab siinaya baa la yiri kambaniyo waaweyn oo loobistayaala oo Israa'iiliyiina oo Mareykanka ka dhax dhisan isla markaana Trump saameyn ku leh marka ninkan qudhiisa nin tabar yar ma aha ayaa la leeyahay awood xoog leh ayuu Mareykanka dhaxdiisaba ku leeyahay oo waxaba suuragal ah Israa'iiliyiinta Mareykanka degan inay si weyn uga soo horjeestaan Trump isla markaana odagay Trump aha xididada loo siibo siyaasadda gudaha Mareykanka qudheeda ayaa lagu loolamayaa warbaahinta adduunka ayaana arrimahan ku guda jirta wixii ka soo kordha waan eegi doonaa qodobkaasi wixii xalay dhacay mucjiso yahay laakiin awoodo qarsoon oo kale oo lagu loolama ayaa jira Trumpna waxa uu leeyahay dadka cadaanka ah baaya sida daraadeed dagaalka Ukraine waa in la joojiyo ninkan waxa uu leeyahay innagaaba ku soo dhisna haddii aan Israa'iiliyiin nahay talada iyo wixii adduunka aan ka rabno waa in hadal basha marka laba awood oo deep state ah ayaa halkan ku dagaalamaya sidaas ayay warbaahinta qaar ku waramayaan ugu dambeyntii haddii aan eego xogayaha difaaca dalka Mareykanka ama aan iraado xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa war soo saaray waxa uu yiri haddii dowladda Mexico ay aqbali weyso inay joojiso dadka aadka ugu soo qulqulaya dalkeena waxaynu ka gudbaynaa curfiga diblomaasiyadda iyo ilaalinta qaanuunka adduunka waxaynu tallaabo ka qaadi doonaa gudaha dalkaasi isla markaana inaga ayaaba gacmaheena isaga celin doonaa Mareykanka mar kale ayuu doc kala faruuray ayaa la leeyahay aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal muuqaalkii labaad ee caawa intaas ayaan ku gabagabeynayaa soo qaan soo barayaan idin leeyahay meel